wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo ay weheliyaan barasabka gobolka Hawd maarayaha hay'adda horumarinta wadooyinka iyo gudida gacanta ku haysa jidka isku xidha magaalooyinka Balugubadle iyo Hargeysa iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta ka qayb galay furitaanka bilowga dhagista carratuulka wadadaasi isku xidha Hargeysa iyo Balugubadle oo muddooyinka u dambeeyay la waday waxaana hirgelinta hawshaasi gacanta ku haya ururka samafalka ee Gurmad Relief hore waxa halkaasi ka hadlay Sheekh Cabdiqaadir Sheekh Axmed oo ku hadlayay afka ururka Gurmad Relief iyo Sheekh Mubaarak Muuse oo kamid ah gudida wadada Balugubadle waxayna faahfaahin ka bixiyeen hirgelinta hawshaasi xafladan waa xaflad hirgelina oo ay Gurmad Relief ay qabatay aan ugu tala galnay in lagu dhiirado sidii wadadii Balugubadle Hargeysa loo sii wadi lahaa oo aanu ka qayb qaadanayna insha Allah taala haddii aan in yar faahfaahin ka siiyo Gurmad Relief waa urur khayriya waa urur wadaniya waa urur waxyaabo badan waqtiyadii abaaraha qabtay waa urur khayriya oo muddo 4 sano shaqeynayay oo sharciyeysan weeyaan Gurmad Relief waxa uu arkay mashruucan maanta wadada Balugubadle Hargeysa inay tahay mashruuc weyn uguna muhiimsan ee ay tahay in laga qayb qaato saadarteed ba ay uga qayb galaysaa Gurmad Relief maanta qaybtan wadada aynu joogno 760,000 iyo $500 ayaanu ka qayb galinaa insha Allah taala waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa in ururweynaha Gurmad Relief ee khayriga ah ee waxyaabo fara badan looga marakacay oo khayr ah inay maanta ay tunka u riteen inay ka qayb galaan oo ay gacan buuxda oo muuqato ka bixiyaan wadada Balugubadle Hargeysa waxa ay lacag ahaan noo soo wareejiyeen ama ay kaga qayb galayaan wadada $760,000 iyo $500 waxa iyaguna halkaasi ka hadlay maarayaha hay'adda horumarinta wadooyinka Cismaan Sheekh Cabdi iyo barasabka gobolka Hawd Yaasiin Maxamed Shide alxamdulillah waa sharaf iyo noo guul anaga hay'adahan oo hay'adii waxaan ahay u darbanayd horumarinta wadooyinka dalka iyo wasaaradda waan isku duubanahay maalintii labaad ee nimaadna hadda wadada weeyii markii hore waxaanu bilownay qorsheen 15 kiiloomitir inaan sameeyno alxamdulillah maanta 40 marna bimaana kalima waxay ahayd wajigii furnaa iyo taageeradii iyo soo dhaweyntii aanu ka helay community-ga ama dadweynaha deegaankan reer Hawd ay ahayd alxamdulillah maanta waxaan si gaar ah anaga waan aad iyo aad ugu mahadnaqanaa hay'adda Gurmad ee waxtarka weyn ee mugale ku soo kordhisay waxaan la qabaa qof kasta oo wadada wax ka geysta waxa weeye waa qof aakhiro wax geystay ama dabad jooga ama guda jooga oo wadadii maanta way socotaaye qof walba waxaad ku darsanayso ha ku darsado mar hadda arkaysaan wasiirkii iyo maareeyihii wadooyinka oo labadiiba madaxweynuhu inoo soo diray oo u diyaara in ay wadadii wadaan dee dawladda dhinaceedii waa haysaaye dhinaca shacabka waxa loo baahan yahay in ay waxa weeye hawsha dardar geliso ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa hay'adda Gurmad Relief waxa iyaguna halkaasi ka hadlay maayirka degmada Balugubadle iyo sidoo kale xubno isugu jiray xildhibaano qurbajoog dhalinyaro iyo injineerada gacanta ku haya wadadaasi waxayna dhammaantood u mahadnaqeen ururka Gurmad Relief isla markaasina waxay bulshada Soomaaliland guud iyo dibadba ugu baaqeen inay ka soo qayb qaataan dhamaystirka dhismaha jidka isku xidha magaalooyinka Balugubadle iyo Hargeysa gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Liibaan Yuusuf Cismaan Ilaahay baa mahad leh maalin kale oo shaqo iyo horumar iyo iskaashi oo ka socda muxuu ahaayay wadadii Hargeysa Balugubadle iskugu keenay runtii ahmiyadda ay wadooyinku leeyihiin horumarka iyo nolosha aadamaha muxuu ahaayay waa laga waramay maareeyaha iyo intii kale iga horeysay way ka warameen maanta halkan waxa ka muuqda iskaashi marka la eego dadka iskugu yimid muxuu ahaayay hawshan aynu maanta bilaabayno kamida qayb wadadii Balugubadle ugu horeyn waxaynu u mahadnaqaynaa gudida wadada oo runtii dadaal weyn iyo muxuu ahaayay xilkasnimo iyo hawlkarnimo muujiyay Maxamed Shiciir Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Balugubadle